halkan oo ah hool ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay 16 xubnood oo deegaan doorashadooda ay ahayd magaalada Boosaaso kuwaas oo hal maalin doorashadooda la qabtay kuraastaas 16 mid kasta waxa uu taagnaa 2 xubnood oo u tartamayay laakiin markii hoolka la yimi waxa tanaasulay mid kamid ah dadkii tartamayay dadkaasi taasina waxay suurto gelisay in dhammaan dadkii halkan joogay gacantaag loogu codeeyay 16 xubnood ee soo baxay oo hal mid oo kamid ahi ay gabar tahay gudoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka ee heer Puntland ayaa kamid ahaa dadkii ku guuleystay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu 3 maalin ka hor iscasilay sidoo kale waxa kamid ah dadkii ku soo baxay kuraasta Cabdullaahi Mire oo isaguna kamid ahaa guddiga doorashooyinka ee golayaasha deegaanka ee Tibek oo isaguna xubin kamid ah ku guuleystay waxa lumiyay siyaasiyiin ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah oo wasiir ahaa kuraastii ay ku fadhiyeen oo dad kale loo doortay markii 16 loo geeyo xubnihii horay garowe loogu doortay waa 31 oo 5 kamid ah ay haween yihiin waxaana dhiban 6 kursi 37 kursi oo Puntland la rabo in lagu doorto Maxamed Xasan Boosaaso.